assalaamu calaykum ku soo dhowaada xinjiraha jacaylka. Waxaan maanta idinla wadaagi doonaa buuggii magaalada jacaylka qaybtiisii labaad, oo buugganna waa buug kale, waxaana la yidhaahdaa waxaa tahay adduunkaygii, qurux idilkeed adiga iiga dhigan. intaanan muuqaalkan u gudagelin, waxaan kaa codsanayaa inaad channelka subscribe saartid, muuqaalkanna aad lagaraysid, lana wadaagtid asxaabtaada. buugga waxaa qoray axmed aale xamdaan, waxaana turjumay yuusuf nuur xaashi efiye. dhammaan sawir gacmeedadayda qolkayga yaalla, kuwaasoo had iyo jeerba waardiye iga hayaa. markaan qolkayga ka tegayo ee aan albaabka sii xirayo, waxaan maqlaa sawiradaas qolkayga yaalla oo sheekaysanaya, welibana cod hoose oo aan si sahlan loo maqli karin. malahaygu waxay iga ilaalinayaan inaan sirtooda faafiyo. waxay ka sheekaysanayaan akhristayaasha dhinacayga ah mar walba, kuwaasoo mar kasta oo aan qoraalka faraha ka qaado igu dhahaa, ha joojin qoraalka, xitaa markaad dhimato. kadib waxaynu kula soo maraynaa qalimaan iyo waraaqo si aad u sii joogtayso wax qorista adiga oo qabrigaaga ku jira. xitaa jinniyad ayaa ii heshay markii aan yaraa, waxayna tiri ha cabsan oo i wado oo la jirkaaga iga dhigo, waxaan ku barayaa waxyaabo fara badan. marka aan booqdo qabrigii ayeeday, waxaan yaqiinsan jiray inay sugaysay, waxayna dhihi jirtay, waan garanayay inaad imaanayso, sidoo kale aniguba waan garanayay inaan imanayo. dhammaanteen waxaan moodaa in halkan qisadu ku eeg tahay, iyo inaanu jirin qaybta labaad ee riwaayaddii magaalada jacaylka ma degaan kuwa caqliga leh. balse mar aan ku sugnaa bandhigga caalamiga ah ee bugaagta, waxaa ii timiday gabarh yar oo gacanta ku sidata dhambaallo. riwaayaddan waxaa alifay axmed aale xamdaan iyo gabadha magaceedu uu ku dhammaado xarafka t. inta aysan ka qaadan dhulka ay warqadda ugu tuurtay, markii uu warqaddii soo qaaday wuu aqriyey keligiis. waxaan kugu dhaariyey allah, quruxdan oo dhan kugu manaystay. ka hortag oo ha soo dhoweyn qof kasta oo doonaya inuu ku yeesho. maalin ayaan kuu soo noqon doonaa aniga oo wataa ciidanka jacaylka iyo hilowga, si aan u ciqaabo cid walba oo maalin ku fakartay inay ku yeelato. markii ay u soo laabatay 1,000 sano kadib, iyada oo dhoola caddaynaysa, ayay dhegta ugu sheegtay, welibana cod hoose, yaa ku baray qoraalka. isaga oo laabteeda udgoon ku jira ayuu yidhi, maqnaantaada ayaa sabab u ahayd. ka digtoonow caqliga marka aad gabadha la joogto. gabadhu ma jeclaan ragga garaadka badan. inaan weli ku sii jeclaan doono uma malaynayn, inaan kuu hiloobi doono ma filayn. si kastaba ha ahaatee, kuma rabo, kuma damqanayo, oo kaa fikiri maayo. xaalkaygu waa ka mayro wixii ku soo maray, laakiin beri si kadis ah ayaan kugu xasuusan doonaa. deetana aad baan u qoslayaa halkii aan ku ooyi lahaa. ma og tahay inaan aad kuu naabahay, waayo waxaa tahay qofka keliya ee i baray inaan ka been sheego wax walba oo dhankaaga u soo qoro. weerahani waxa ay ku qornaayeen bogga hore ee dhambaal ay ii dhiibtay gabadh yar oo aan filayin da'deedu aysan dhaafsanayn 6 jir. kadib markii ay ka soo dhex xaluulatay dadka faraha badan ee igu hareeraysan ee doonaya inaan u saxeexo buugga magaalada jacaylka ma degaan kuwa caqliga leh ee bandhigga bugaagta caalamiga ah 1439 hijriga. deetana inta gabadhii yareyd ee dhambaalka ii dhiibtay u hogtay aniga oo dhoola caddaynaysa, ayaan idhi, waa maxay dhambaalkani? waa dhambaal. waan garanayaa hadalkaas, ayaan ku idhi anigoo si toos ah u eegaya. waxaan ku weydiiyey, yaa kuu dhiibay dhambaaladan? gabadhii yarayd farta ayay meel ku fiiqday. deetana halkii ay farta ku fiiqaysay waan midacsaday. waan u jeedi waayey cidda gabadha dhambaalka u soo dhiibtay. gabadhii yarayd ayaanay eegay.
anigoo yaaban. Saawajigeedaba waxaa laga dheehan karaa cabsi meel dheer ah. Way tagtay ayay idhahday iyadoo igu eegaysa laba indhood oo daacadnimo ku dheehan tahay. Una eeg indha bakayle ka cabsi qaba in la ugaarsado kadib godkiisii dawaale iskugu shubay. Gabadha yari aad ayay u caddahay. Waxaad moodaa inay ka timid waddan aanay qoraxdu ka soo bixin. Waa indha deeraley. Waxay leedahay weji siman, una eg mid ka mid ah wejiyada taalooyinka Giriigga ah ee lagu ilaaliyay madxafka ah raadadka qadiimiga ah. Waxay leedahay oo kale timo aad u madow oo tidac loogu jiiday, weliba si habsami leh. Qofka arkaa gabadhaas wuxuu moodaa in farshaxamayste sawir samaynta ku xeeldheeri uu sawiray isagoo adeegsanaya qad iyo qayaxato iyo qalimaan kala duwan. Waxaase abuuray inta wax abuurtaa kan ugu wanaagsan. Yay ahayd gabadhii inta dhabbaalkan ku dhiibtay iskaga tagtay iyadoo maankeedu isdiidan yahay ayay tiri waxay ahayd gabadhii. Waxaa jira dareen shaki igu beeray kaasoo i yeerinaya inaanan garanayo qofka soo qoray weeraha dhabbaalkan ku qoran. Hab qoraalka caynkan ah xasuustayda ayuu ku wareegayaa. Waxaabad moodaa in qofka dhambaalada gabadha yar u soo dhiibay aan meel ku arkay magacaa. Labadeena gacmood ayay dhabarka gadaal ku qarisay oo welibana dhulka eegtay. Jawaabna ima aysan siin. Ma garanayo waxa ay dareentay gabadhaas yari xaaladaas. Gabadha yari wax walba oo dhambaalka la xiriira way ogtahay. Nasiib darrase dooni mayso inay wax caddayso. Sidaa awgeed waxaan isku dayay inaan ka ag dhowaado si ay daaha uga qaado ogaalka laabteedu buuxiyey. Asalkaba ma garanayo habka carruurta loola dhaqmo. Kolkaan isleeyahay gabadhan u dhowow, wax qorshe ah oo aan ka baaraan degay gacantayda kuma jiro. Waxaan ku fakaray inaan magacayga u sheego marka hore, deetana hadalka aynu baaxadajinno si tartiib tartiib ah ilaa aan ka qaato xogtan aan ka doonayo. Magacaygu waa Axmed. Waan garanayaa ayay tiri. Say haddana tiri weliba waxyaabo kale oo badan baan dhankaaga ka ogsoonahay. Ma hubtaa? Madaxa ayay ruuxday si dhagari ku dheehan tahay iyadoo dhowla caddaynaysa. Waxaad ma moodaa shaydaamad yar. Maxaad iga garanaysaa? Afka ayay kala qaaday iyadoo hadal damacsan. Haddana si kadis ah ayay afkii u yuutay. Waxaabad moodaa inay ballan xasuusatay. Arrintani waxay daaha ka qaadaysaa inay wax iga qarinayso. Waxaan iskuu muujiyey qof degan oo xasilooni si aysan wax kayga ah u dareemin anigoo isku dayaya inaan u dhowaado xaggeeda. Waxaad iigu sheegi weyday magacaaga. Mar labaad ayay labada gacmood dhabarka marsatay iyada oo gacmaha isku duubaysa, dhulkana eegtay. Wax jawaab ahna ima aysan siin. Weli isma dhiibin. Waxaan isku dayay inaan ku tijaabiyo su'aalo ka weyn hore ka fudud. Su'aalahaas oo ahaa haa ama maya un lagu jawaabi karo, amaba xitaa ay ugu jawaabi karto hab ishaara ah sida inay madaxeeda wax walba ku ishaarto iyadoo aan wax hadal ah furin. Iskuul ma dhigataa? Fasalkee ayaa tahay? Waxaad xidhan tahay dhar aad u qurux badan. Hooyada ayaa kuu doortay. Waxaasoo su'aalah jawaabiga ma aysan siinin. Waxaan damcay inaan aad ugu xanaaqo, cabsi geliyo, kuna qayliyo sida sirdoonka oo kale. Marka qof ay wax ku tuhmayaan uu aftaag mooyee wax kale ka waayaan, balse habdhaqankaasi qallafsani gabadhaas yar uma adeegsan karo. Keliya maaha inaan ahay nin naxariis badan ee dadka hareeraheenna tuban ayaa inoo jeeda. Sida caadadu ahayd, xarumaha daabacaadda ee bandhiga ku sugan waxay qoraayada u soo diyaariyaan macmacaanka noocyadiisa kala duwan iyo qaxwo si ay uga kufaaxaan inta ay badda akhriska bugaagta u saxiixayaan. Sidaa darteed hareerahayga ayaan si degdeg ah u fiiriyey aniga oo raadinaya waxuun gabadha yar ku laaluusho sida xalwad ama shukulaato. Waxaa laga yaabaa inay la sheekaysato haddaan afka u macaaneeyo oo shukulaadadan. Markii ay shukulaatadii gacanteeda gashay markiiba waxay salaam ku siisay jeebka jaakatiinkeeda. Waxaabad moodaa inay ka baqayso cunug kale oo raba inuu shukulaatada ka dafo deetana uu kala baxsado oo ay gaari weyso. Hadda ii sheeg yaa waraaqadan kuu soo dhiibay. Barta ayay afka gashatay
intaysan waxba ii sheegin cabbaar ayay fakartay. Waxaad mooddaa in fakarkeeduba daran yahay inay ka cabsanayso shukulaatada inaan ka qaadanayo haddii aysan ii jawaabin. Waxay tidhi waxay ahayd gabadh. Waan ogahay inay gabadh tahay ee waa tuma. Fartii oo wada candhuufa inta afka ka soo saartay ayay horteeda ku fiiqday farteedii. Halkaas ayay joogtaa, balse way baxday. Waxaan xustay in mararka qaar ay carruurtu iga baqaan arrintan. Waxaa laga yaabaa inay u laabanayso garkayga oo aad u weyn, maqaskana aysan in muddaha is arag anbaba. Waxaa laga yaabaa in gabadha yari ka cabsatay shaaribkayga tirada badan, kaasoo mararka qaar qayb ka mid ah ay kor u maleegto aniga oo aan ugu talagelin. Deetana marka kor looga jeedo waxaa loo malaynayaa in shaaribkayga tiro cayayaan ahi dul fuushan yihiin. Sidaa awgeed dhoola caddayn gacan kurimis ah ayaan iska raadiyey si wejigaygu u muuqdo mid naxariis leh. Hagaag, miyaad taqaanaa jidka ay ka baxday? Waxay tiri maya. Kadibna jeebaddeeda ayay gacanta gelisay, waxayna ka soo saartay 10 riyaal. Waxayna tiri qaado. Inta welibana dhankayga u soo taagtay ayay tiri qaado, adiga iska leh. Waxaan fahmi waayey waqtigaas maxay gabadha yar lacagta ii siisay. Aadna uguma sii fikirin arrinkan. Waxaan idhi may gabadhaydiyay iska hayso. Sideen qoraa ku noqdaa hagaag? Shaki fara badan ayaa laabtayda ku dhex hardamaya. Shakigaasi oo ka dhashay in mararka qaar ay ii yimaadaan qayb ka mid ah bahda wax qorista ee weliba xamaasadda akhriska biyo dhigtay, iyagoo weliba wata qayb ka mid ah xulka qoraaladooda. Kadibna aniga ama qoraal kale ayay ka dalbanayaan inay akhriyaan. Waxayna kaa dalbanayaan inaad talo iyo ra'yi sugaansan ka siisid. Waxay ii haystaan qoraa cajiib ah oo iyaga ku bushin kara waxa ay soo qoreen, ama waxay filayaan inaan sii karo talooyin ka saacidi doona hab qoraalka tulmoon. Balse xaqiiqda ayaa ah anigu qoraa ma ihi, wax weynna kama fahmo shuruucda qoraalka. Ma kala saari karo farqiga u dhexeeya riwaayad iyo qiso. Mararka qaar waxaan dhibaato ku dareemaa markaan la fadhiisto qaar ka mid ah qorayada madbacadda, iyaga oo ka doodaya arrimaha suugaanyahanada iyo suugaanta. Markaasaan madaxa iska ruxaa aniga oo iska dhigaya inaan wax fahamsanahay. Waxaabad mooddaa arday damiin ah oo madaxa iska ruxaa xiisadda xisaabta isagoo aan waxba fahmin. Sida dhabta ah anigu waxaan ahay uun nin sawira waxa ku sugan darbiyada xasuustiisa ilaa inta ay iga soo laabanayso gabadh iga tagtay oo aan filayo inaysaba soo laabanayn. Balse dadku rumaysan maayaan inaanan qoraa ahayn. Waxay u haastaan inaan tawaadaciyo oo aan dhulka isdhigayo. Waxaan ku qasbanaadaa inaan siiyo waxuun talo ku sheeg ah. Waxaan ogsoonnahay talooyinkan qorayaasha siinayo inay dhibaato un mooyee dheef inaanay u lahayn. Maalin maalmaha ka mid ah ayaa qof akhrista ay weydiiyey sideen qoraan ku noqon karaa. Markaas ayaan ku dhahay waddada keliya ee aad qoraan ku noqon karto waa inaad gabadh jeclaato, kadibna qadarku kaa qaado, welibana si qasab ah. Markaas oo qura ayaad qoraan noqonaysaa. Waxaan wax u qorayaa si aan u khiyaali ah ugu soo ceshanno waxaysan macquul ahayn inaan nolosha sii wadanno la'aantood. Anigoo arkayo qofkii hadalka aan u sheegay in aanu hadalku ku socon, ayaan hadalkayga sii watay. Dhibta iyo dhaawacuba waa waxa qoraaga hogaaminaya. Sidaa darteed waa in gabadhu ka digtoonaataa inay qoraa jeclaato, waayo maalin uun ayay ka haajiri doontaa isaga oo weliba jecel. Kaliya si xanuunkaasi uu dareemayo markaaad kala tagtaan uu buug cusub ugu soo saaro. Haddana waxaan ku dhahay qoraagu waa inuu aad uga digtoonaado waxyaabaha uu qorayo. Waxaa dhici karta in balaayo uu qoray ay si dhab ah ugu dhacdo. Mararka qaar qadarku wuxuu qalinka u dhiibayaa kuwa jecel inay qisaska sameeyaan. Fursad ayaaba loo siiyaa inay qadarka la socdaan shar iyo khayrba. Wixii ay qoreen ayaa hadhow loo dhiibaa. Haddaba waxaan ku dhahay qofka ay ayeeyadiis dhimatay inta aysan u sheegin qisooyinkii ay soo martay suuragal ma aha inuu qoraan noqdo. Qisooyinka ayeeyooyinka oo qura ayaaba buug idin laga qori karaa. Waxaan rabay inaan wax kale u sheego, laakiin waan iska aamusay, waayo qofkii talada i weydiiyey culays ayuu ka dareemay talooyinka aan tixayo, wuuna iga fogaaday. Aynu dib u jeclaano arrintii gabadhii yarayd. Waxaan la yaabanahay gabadha wax qortay, iyadu dhambaalka iima keenin cunug yar ayay iigu soo dhiibtay. Waxaana yaqiinsanahay in gabadha yar la soo faray wax jawaab ah inaysan bixin. Shakigaas aan qabo
waxa uu toos ugu muuqday wejiga gabadha yar. Waxaan dareemayaa in gabadha warqadda soo dhiibtay ay kor igala socoto, xitaa waxaan dareemayaa neefsigeeda sidii inay ii dhowdahay. Waxaan kaloo suuraysanayaa eegmadeeda iyo kolba dhinaca ay iga eegayso, oo xitaa waxaan dareemayaa garaaca wadnaheega. Qoraalkeeda dhambaalkeeda koowaad ku qornaa ma dheerayn, laakiin waxa uu ahaa dhambaal xeer dheer, ilaa xad aan ka dareemay kelmadahan in loo qoro cid aan aniga ahayn, anigoo kaliya ayay dhambaaladan igu socdeen. Dembi baare yar oo igu dhex nool ayaa yidhi, waa yaab iyo amakaag ee baar shakhsiyadda gabadha dhambaaladan kuu soo dhiibtay. Arrinkaasi wax xun dhagar ah ayaa ku maldahane. Waa sax, waxa uu sheegayo baaraha igu dhex jira. Haddana islaan waayeel ah oo igu dhex nool ayaa tiri, warqadda rog oo ka wareeg, aynu aqrino waxa ku qorani. Dhambaalkii ayaan furay, akhris ayaanan ku bilaabay. Sidan ayuuna ahaa: inta ay naga maqan yihiin wakhtigu wuu inagu culus yahay, oo halka saac ayaa sannad ka badan. Waan ogahay inaynu si badqab ah isku seegnay, dadka kalena ay la xirteen oo xiriiro kala galeen. Dadkaas kale waxay ku dhahaan hadal ay innaga maalin nagu dhaheen. Inay abidkood la joogayaan ayay ugu dhaaran doonaan dhowr mar, siday annagaba inoogu dhaarteen, oo haddana inoo cidleeyeen. Si kastaba ha ahaatee, waxaan ogsoonnahay xitaa inaysan na soo xasuusan daqiiqad, laakiin arrintan waannu isdhaafinay si qalbiyadeennu aysan u ooyin. Waxaana la moodaa gabadh yar oo ka hoysa qolka geeskiisa, kadibna markii looga warramay iyadoo iskuulka ka timid oo warmoog ah welibana faraxsan in aabbaheed dhintay. Waxaan ka bartay maqnaantaada in wax walba la weyn karo, lana hilmaami karo adiga mooye. Mudanahaygiyow, adigu waxaa tahay shayga keliya ee xasuustayda aan ka bixin. Waxaa tahay qofka keliya ee aanan jacaylkiisa ka dhex bixin karin, xitaa haddii uu aad iga fog yahay. Baarihii iyo cajuusadii igu dhex noolayd ayaa dhahay awood-sheegad dhanka suugaanta ah weeyi. Waxaan si kadis ah u hadlay qoraagii igu dhex noolaa oo yidhi, adiga ayay iska kaa dhigaysaa, sidaad oo kale ayay wax u qoraysaa. Waxaabad mooddaa inay qalinkaaga ka xadday. Gabadhii yarayd ayaan ku dhahay, ha dhaqaaqin. Waxaanan ku dhahay, halkaaga joog. Warqaddii intaan duuduubay ayaan ag dhigay ayadii, deetana rucle orod ayaan ku dhuftay, anigoo raadinaya gabadh nii soo qortay qoraalkan yaab kale. insha allah qaybta labaad waa inoo muuqaalka waxaan rajeynaya inaad halkan soo gaadhay. Waxaana kaa codsanaya inaad channelka subscribe saartid, muuqaalkan aad like garaysid, sidoo kale qaybta commentigana aad wixii fikrad aad ku haysid nagula wadaagtid.